السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيادة شرفت المركز الديني في جوفان waxaan leeyahay kusoo dhawaada mar labaad youtube channel sirta quruxda oo walaashin Zainab insha Allah maanta waxaan ka hadli doonaa dry skin-ka maqaarka qallalan iyo waxyaabaha keena waxyaabaha loogu hortagi karo iyo sida ku garan kartid oo kale inuu maqaarka qallalan yahay oo kale iyo dhammaan waxyaabahaas oo dhan baan insha Allah ka hadli doonaa bismillaahi kariim la socod wanaagsan insha Allah video xigana waxaan kaga hadli doonaa insha Allah dry skin-ka kareemada loo isticmaalo marka hore dry skin-ka ama maqaarka qalalan waxa noqon kartaa mararka qaar wax mataqaanaa mararka qaar kugu dhacda inaan ahayn wax joogto ah sida xilliyada markay isbedelaan oo kale xilliga loo yaqaan winterka oo kale ama xilliga qabowga oo kale ama barafka u dhacayo kale waxa laga yaabaa maqaarkaaga inuu saad u qalqalo sidoo kaleeto mararka qaarna waxay noqon kartaa maqaarka qalalkiisa inuu yahay wax joogto ah oo life long oo kaleeto ah marka saas oo kaleeto ay noqoto ay tahay oo kaleeto taas marka macnaha maqaarkaaga waxaa jiro qaleelka u dhalatay maqaarkaaga ayaa macnaha waxaa leedahay maqaarka qalalan oo kale usoo dhadhacno astaamaha aad ku garan kartid inaa maqaar qallalan tahay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay garanaynin maqaarkooda inuu qallalan yahay in kaleeto laakiin waxaa jirto astaamo lagu garto inaad leedahay dry skin inaad leedahay oo ama maqaarkaaga uu qalalo mar walbo waxaa ka mid ah in aad dareentid mataqaana inuu maqaarka ku noqdo tight ku noqdo macnaha halkan aan kusoo diyaarsay si aan u kala ilaawin maqaarkaaga inuu tight noqdo markaad soo qabaystid oo kaleeto ama shower soo qaadatid sida hot shower oo kale hadaad soo qaadatid oo kale ama swimming pool hadaad soo dabaaltid cabaar biyo kusoo jirtid oo kale banaanka markaa usoo baxday oo kale waxaad dareemaysaa maqaarkaaga inuu mataqaana tight uu yahay macna qaq inuu yahay camal wax saas u taagan oo kale wejigaaga engegan yahay ama gacmahaaga ama korkaaga oo dhan okay taas ayaa dareemaysaa waxaa kaloo dareemi kartaa markaa maqaarkaaga saa u taabatid waxaad dareemaysaa qababac inay mataqaanaa waxa ay maqaarka markuu qalalnayn waxa lagu waa soft markaa taabashadiisa aad taabatid maqaarka wax ma dareemaysid qaleel zaa'id ama maqaarka inuu raaf ku yahay oo kaleeto raaf macnaha engegan yahay meel adigu dee markaasaa u taabatid aad dareemi kartid maqaarkaaga inuu qallalan yahay ayaa mataqaanaa engeg oo kale macnaa engeg baa dareemaysaa markii aad taabatid maqaarkaaga sidoo kaleeto waxaa dareemaysaa cuncunaa dareemaysaa dadka maqaarka qallalan macnaa cuncun baa dareemaysaa sidoo kale waxaa dareemaysaa in maqaarkaaga qolofta macnaa kore mataqaanaa soo dhacdhacaysa camal laakiin qofka markuu soo qabaysto oo saabuun uu mataqaana dhagax ah saabuun maris saabuunta Soomaaliya ama dadka Soomaaliya badanaa jooga ama dadka badanaa Soomaali haddaan nahay badanaa waxaan isticmaalnaa saabuunada dhagaxa ah ma ogtahay saabuunada dhagaxa ahna wallaahi marka lagu soo qabaysto isla markii maqaarka way engejisaa marka banaanka usoo baxdo adiga waxaa u ekaanaysaa mataqaanaa baftacad oo greyish kalarka greyish ayaa yeelanaysaa oo sida qof ma garanaysaa sida wax boor cadas lagu yaaciyo kale marka duf yaroo cad oo mataqaanaa saas u kacay oo kale baa kaa kacayo markii aad qalqalashid macnaha oo qalqaleelkaaga macnaha waxay maqaarkaaga astaamaha ku garan kartid inaa maqaar qallalan tahay waa dadka kale oo maqaarkooda aan qallalnayn hadday soo qabastada isla markii still oo soft iska dareemayaan wax ka kacayo mataqaanaa qalqaleel iyo markay maqaarkooda saa u taabtaan engeg iyo waxa ma dareemayaan so waxyaabaha kaleeto lagu garta maqaarka qallalan waxaa ka mid ah haddii aad usually wejigaaga oo kaleeto aad ku aragto in wrinkle kusoo galayo wrinkle waxaa la lahaa duubduub indhaha korkooda iyo meelaha qaar dadka marka gobow wejiga soo galay ama korkooda soo galay lagu garto ayaa isku arkaysa waxyaabaha kaleeto isku arkaysa waxaa ka mid ah gudguduud ma garanaysaa casaan wejiga maqaarkii oo ku cascasaanaya meelaha qaarna waa laga yaabaa inay ku dildilaacdaba oo markaasna aad isku aragtid maxaa la yidhi meesha ku dilaacday oo dhiig ku noqotay badanaa waxaaba kusoo xasuusta sheekadaas gabdhaha iscadeeya oo mataqaanaa iscadeys markaan dhahayo kiimikada xun isticmaalo oo bleachka oo kaleeto oo loogu talagal timaha waxaa la marsado kiimika adag aa ku jirta intay isku qaqasaan kareemo ku qaqasaan
kadib bac isku xirxira lugaha iyo gacmaha maxay dareemaan korkooda inuu dildilaaco dildilaacaas maxaa keenaysa waa qaleelka faraha badan iyo kiimikada jirkaaga dilaysa weliba majority badana gabdhaha iscadeeya waxa ay aad uga cawadaan waxaa kamid a qaleelka faraha badan qaleelka faraha badan waxaa keenaya waxa weeyaan kiimikada la isticmaalayo ma fahantay ayadaana marka ku dabda marka usual marka waxyaabahaas isku arkaysa gabdhaha xataa waxaa jira isoo dhihi jira abaayo meelahan aan ka gudgududana maqaarka waana dhacdhacaya haddaad isku aragto macnaha gudgudud balbal maqaarka saa kuu markaad taabatid qaleel qaleel waxaas yani waxa waaye dharaay isla markii allergicna kugu kacay waxba allergic ka qaaday sidoo kalena qaleel fara badan ayaa meeshaas ka jira marka heerkaas oo kale aad maraysid maqaarkaagu aad u dilaaco dhiig waxa aad isku aragto ama xaaladaas aad gaartana waxaa u baahan tahay inaad isla markiiba la kulantid dhakhtar oo quseeyo maqaarka si xaalkaaga wax looga qabto maqaarkaaga inuu qalqallo waxaa kugu keeni karta hawada oo kaleeto hawada haddii isbebedelada haddii hawada dry tahay ama qabow winter ay tahay oo kale dadka qaar maqaaradooda yani wuu qalqallaa maqaarkooda dadka qaar waa isku mid ma aha waxaa laga yaabaa inay kugu keeni karto maxaa la dhihi jiray kuleelka oo kale meelaha kulul oo magaranaysaa haddii aad ka shaqaysid meel cunto aad karinaysid maanta dhan dab aad ku jirtid oo kale hiidka faraha badan haddii xataa mataqaana hiitarka oo kale stoof waxyaabahaas oo dhan kuleelka faraha badan oo meelaha kulkul huurka iyo waxaas dhan yacni way keenaan maqaarkaaga inuu qalqallo waxaa kaloo kugu keeni karta inuu maqaarkaaga qalqallo sida hore idinkugu soo sheegay saabuunada haashka ah saabuunada adag dhagaxa ah maaragtay sida lifeboy waxaas ayaa lifeboy maa dhahaa arinu saabuunada adiga dhagaxa ah mataqaanaa kiimikada ku badanta oo kale aan ku qabaysan markaa kusoo qabaysatid waa dareemaysaa jirkaaga suu u qalqalalayo magara waxyaabaha kaloo kugu keeni karana saa hada ay kugu sheegays haddii jiro maqaarka xanuun hadduu jiro oo aad maqaarkaaga oo kale uu leeyahay xanuunada maqaarka ku dhaco sida eczema psoriasis iyo wixii lamid ah ayadana way kugu keeni kartaa waxaana kaloo laga yaabaa in mataqaanaa waxaan genetic yahay oo yani familka yani hiddo ahaan oo waalidkaaga ama awowda ama ayeeyada ama meelahaas aad ka keentay dadka qaar yani maqaarka qalqallan way iskaga dhasheenba oo iskaga dhalataaba laga yaabaa oo jiinkaaga ku jiro marka anyways in maqaarka uu qalqallo wax weyn ma aha waa waxa iska daaweyn karo sidaa daraaddeed si aad uga hortagtid in maqaarkaagu qaleelka kusii saa'ido ama kugu sii xumaado ama xitaa maqaarkaaga mar walba uga taxadirtid waxaa jirto ka hortag ayaa sameyn karta waxaa ugu horeeya aad uga hortagi kartid waxaa kamid ah in waxaa muhiim horta aada muhiim u ah inaad ka hortagtid si uusan maqaarkaaga usii qalqalin kuna sii fogaan dad baa qalqaleelkaas badan marka dambe u keentaa markii yani ka hortagi waayaan ama sameyn waayaan wax ficila inay kusii xumaato xanuunada maqaarka ku dhaco kale ama isku bedelo oo kale ama maqaarkaaga damage uu kaa gaaro marka waxaa aada muhiim u ah inaad mar walba maqaarka aad mataqaanaa aad ka taxadirtid waxyaabaha ugu horeeya kaga taxadiri karto waxaa kamid ah inaad moistureka ugu dadaashid oo maqaarka mar walba aad marsatid kareemada moisturizerka kareemo waxaa jira moisturizing ah oo hydrating ah oo maqaarka kuu qoynaya marka inaad ka hor isticmaashid haddii ahaan leeto wejiga haddii ahaan leeto skinkaaga kale jirkaaga kale meelaha kale oo isticmaashid waa very important inaad markaas soo qabaysatid isla markiiba aad isticmaashid moisturizing aad isticmaashid oo xitaa hadda Soomaaliya joogtid dib kugu tahay inaad kareen moisturizer waxaas gadatid waxaa kugu fudud aad ka heli karto ama sida ugu fudud aad ka heli kartid inaad isla markii maqaarkaaga qaleelka ka ilaalisid waxa waa inaad saliid isticmaashid saliid macsara taalo saliid zeytuuna taalo yacni saliido way baxaan Soomaaliya saliid waa isticmaali kartaan marka soo qabaysata isla markiiba saliid isticmaala kirisliinka oo kaleeto intaad biyo ku qastaan oo meel dhigataan isticmaala anything markaa soo qabaysatay wax cunug korkaaga mari yani haddii kale korkaaga kusii qalqalla qararaca noqonaysaa badanaa soomaalida ma isticmaalno qofku markuu soo qabaysto isagoo u malaysa dambas u eg ayuu haddana banaan usii baxaya madaxaan saliid marna waa iska soconnaa yani korka kale dhan ma marano saliid marka waa muhiim inaa wejigaaga gacmahaaga jirkaaga dhan gebi ahaan aad isticmaashid moisturizing kareen ama saliid waxaa wixii aad awoodid
waxaa kaloo lagaa rabaa inaad biyaha markaad isticmaalto ama aad qabaysanayso kale ama swimming pool aad aad jeceshahay inaad dabaaltid oo kale inaadan ku fogaan kuna dheeraan waqti kooban oo cayiman aad isticmaashid si uu maqaarkaaga tumad usii qalqalan haddaad qabaysanayso oo hot shower aad qaadanaysid ama biyo kale caadi ku qabaysanaysid 10 minutes ka badan inaad ku dhex jirtid maha qabayska dad baa arkaysaa saacado musqusha iska dhex jiifa oo ma iska dhex fadhiyo iska qabaysanaya maanta biyo ku dhex jira hadhowna iyagoo mataqaanaa xaali meesha kasoo baxaya marka saas waa laga fiican insha allah taasna waa in laga taxadiraa maxaa yeelay waxyaabahaas oo dhan maqaarkaaga ay sii qalajinayso sidoo kale isticmaalka saabuunada dhagaxa ah saabuunada haashka ah ee korka loo isticmaalo saas loogu rugo maaragta oo isla markiiba maqaarka moistureka yacni maqaarka qoyaan buu leeyahay biyuu leeyahay gudaha ku leeyahay haddii aad saabuunadaas dhagaxa ah ku rugtid korka waxaa dhacaysa inuu kala baxo biyihii korka adigoo markaas qaqa ah soo baxay oo engegan oo aad u malaysid in foorno lagu dhex gashay camal lagu dubay marka ma fiicno iska ilaaliya saabuunada haashka iyadan aad bay u xun tahay haddii macquul tahay ku qabaysta mataqaanaa shower jeelka oo kaleeto waxaa jirta saabuuno macnaha qoyan oo diyaarsan oo moisture wata kareen iyo waxbay gudaha ku wataan ama saliido ama jirka inuu engegayo ka ilaaliya marka kuwaas oo kaleeto ku qabaysta sidoo kale haddii xili qaboowintan waxaas aad joogtid ama dabeel waxaas dhacayso ama xili hawadu qallalanta oo kaleeto isticmaal mataqaanaa waxyaabaha dhar oo mataqaanaa adiga dhan ku asturaayo gloves xiro madaxa koofiyad gasho yacni dhar korkaaga dhan daboolaya gasho si uu jirka hawadaas qallan ama qabowga ahay qallan ee kugu dhacaysa aysan mataqaanaa kuusii qarqalajin marka intaas way muhiimadda ugu weyn in mataqaanaa mida kalena haddaa tahay qof shaqadiisu ay tahay maanta dhan inaad biyaha faraha kula jirto oo kale sida dadka ka shaqeeya mataqaanaa beauty salonada oo kale timaha oo kale dadka hagaajiya maanta dhan timay dhaqayaan maanta dhan timay faraha kula jira ama shaqadooda haddii tahay sida kalkaaliyaasha oo kale kalkaaliyaasha iyagana sidoo kale maanta dhan macnaha gacmahooda way dhaqayaan maanta way dhaqayaan laano maxaa la dhihi jiray marba qof bay la kulmayaan qof marka yacni waxaa fiican inaad boorsada kaga wadid kareenyo lotion ah oo mar walba aad gacmahaaga marisid laakiin waa adagta isku day xitaa inaad gloves isticmaashid markaad qof tima u hagaajinaysid markaad yani nurse tahay oo aad dad maanta dhan la tacaamulaysa xanuunsan oo kaleeto marka gloves inaad ka xirataa iska fiican intaa moisturizerka iska marsatid si ay gacmaha ku egyihiin waxyaabahaas dhan aaday u fiican yihiin si aad uga taxadirta qaleelka faraha badan qiyaasta sharafta leh meel kasta dunida joogtaan videogeena maanta intaas uu ku egyahay haddii aad ka heshay fadlan subscribe-ka dhacdhac kastii oo haddii aad nagu cusub tahay haddii hore iila joogteenna inaad subscribe saartaan muhiim ma aha hore u saarteen waxaa kaga baahan yahay waxbaa inaad like-ta waa bilaashay aad suulka saa u taabataan sidoo kalena aad la wadaagtaan asxaabtiina maadaama aniga aan biyaan soo noqday muddana aan ka maqnaa janaalkana dadkiina iga dhaceen igana hareen si aan dib ula soo qabsado insha allah dadkayga hore oo la socday oo dhan fadlan waxaad iga codsanaya inaad sheerka iyo like-ta iyo commentiga intaba isku feedartaan haddaba waxaa videogan inoogu xigi doona insha allah biidnillahi kariim kareemada loo isticmaalo maqaarka qalqalalan hadday noqon lahayd kuwa faceka ayaan ku bilaabana insha allah biidnillahi kariim kadibna kuwa boodigan ku dari doonaa oo iyagana kasoo hadli doonaa sidaas si la eg waxaan kasoo hadli doonaa maqaarada iyagana qoyan oo oyliga ah iyo kareemada loogu talagalay haddaba waxaan idin leeyahay la socod wanaagsan barnaamijyada iyana idin dhaafi biidnillahi kariim intaa video lamid ah ku kulmi doona dhammaantiin waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu